taawusoo celiya caafimaadkiisa waxaa magaalada Woodward muddo ku tabaalaysnaa isla markaasina xanuun googooyay jirkiisa afkiisana sida tan ugu galay gacmaha lugaha uu ku hayay magaalada Woodward Cabdiraxmaan Xaaji Axmed Afarshagle oo kamid ah odayaasha deegaanka ahaana qayb kamid ah mu'adimiinta masaajidda degmada Woodward Cabdiraxmaan xaaladiisu waxa ay tahay haatan mid aad iyo aad u ildaran waxaana culimada deegaanka Woodward ugu baaqeen walaalaha muslimiinta ah meel kasta ay joogaan in ay si degdeg ah ugu soo jawaabaan sidii dhakhtar dibadda loogu qaadi lahaa maadaama Cabdiraxmaan hanti wixii uu haystay ay ka dhamaatay kadib markii uu dhakhtarada dalka gudihiisa ah in muddo ah ku wareegayay isla markaasina ay sidan uu soo dhaami waayay waana kuwan odayaasha oo ka hadlay waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa dadka walaalaha ee muslimiinta naxariista badan ee isu danqanaya aan u soo gudbinaynaa dhibanaha halkan ka muuqda la yiraahdo Cabdiraxmaan Xaaji Axmed Cabdi Afay oo ku dhacay imtixaan xanuun ah oo Ilaahay uu keenay baadiya aad wax looga argagaxaa xanuunkaas oo ah jirkii ayaa googo'ay saad aragtaanba meel walba xubin kasta hadday cag tahay iyo hadday gacan tahay iyo hadday madax tahay meel walba waa ka soo baxay afkii ayuu googooyay jirkiisi baa afkii uu saa wada googooyay ilkihii iyo daamankii iyo lafihii oo dhan baa diiran waa dhibaato runtii aad iyo aad qof kasta oo islaam arka uga argagaxayo xanuunkani muddo badan ayuu soo hayay marba marka ka dambaysa ayuu uu ku soo siyaadayay haddana maaragtay xaalad aad iyo aad u khatar buu marayaa khaatirtan soko oo dhan waa la geeyay waddanka meelo ka mid ah baa la geeyay lama wada geyne waxa weeye waxba waa laga qaban kari waayay haddana waxa uu u baahday qofka islaamka lagama quusto Ilaahay naxariisiisa lagama quusto in uu dhakhtar weyn lagala quusto ama meel loo gudbiyo ayaa noo muuqatay dhaqaalihii iyo wixii raay uu haysay isagana walba hanti fiican haysana waa ku baabiceen ubadkiisii iyo dadkiisina waa ku rafaadeen waa ku dhibaatoodeen rasuulkeena wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى المسلمين تسدع يسوون حريصانيان يسيسوكو تريان waxay la mid shirka kaliya shirka kaliya hadii xubin xanuunta shirka inta kalena xanuunka iyo dhibka ayuu la wadaagay waxaan kaliya ku dayaa waxa weeyaan faahfaahin waxa weeyaan insha Allah ta'ala hadii Ilaahay qadaro ninkan Cabdiraxmaan Xaaji Axmed Cabdi Afay oo runtii loo yaqaanay Afarshagle ay runtii kulli deegaanka magac dheer ku lahaa asxaab badan iyo dad badan kulli ay yaqaaneen laguna garanay magaciisa Afarshagle oo ku garanayo waad arkaysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala taan buu keenay oo taan xanuun Ilaahay u keenay wuuna ku samreeyaa oo aad runtii samirkiisu ku fiican yahay waxaan dadka muslimiinta ee gudaha iyo dibadda jooga meel kasta ba joogeen aanu soo jeedina waxa weeyaan anagoo aan ka qayb qaadan doono inta awoodeeda in wixii awoodiisa qof kasta islaam ah uu ka soo qayb qaato oo sidii walaalkeen aan ugu gurman lahayn dhakhtar dibadda loo diri lahaa in insha Allah ta'ala aska kaashano la ka siiyo murugo korkooda ma ahaan iyo xabsi bay Ilaahay leeyahay taasoo kala wada loo wada dhashay oo islaamku inuu yaani kalar kasta hala ahaade uu iskaga gargaaro waxaan rajaynaynaa oo aad idinka codsanaynaa inaad arrinta ayada ka soo jawaabtaan waliba jawaab degdeg ah ka soo bixisaan qof walba isagoo wuxuu bixiyo Ilaahay dartiisa helaya wassalaamu calaykum waraxmatullaah si kastaba ahaatee walaalaha muslimiinta ah waxaa laga sugayaa jawaabta ay ka soo bixiyaan walaalkoodani markaasi u baahan maalintani isla markaasina sida ay uga qayb qaadan lahaayeen inti kalaamkooda ah gargaar Allah ayaa gargaar leh waxaana laga codsanayaa walaalaha muslimiinta ah inay telefoonka shaashada idinka muuqdaad kala soo xidhiidhaan Cabdiraxmaan iyo xaaladiisa wixii tabarucaad ahna telefoonadaas kala xidhiidhi doontaan iyo guud ahaanba hawaaladaha Soomaalida waa Cabdi Ciro Kalsan TV magaalada Woodward